deeqo weyd maxamuud walaal deeqo see wax ku gaaran walaal waxay gaareen lugta bidixda qaybta hoose waxa dhaawac uu gaaray farxii naasaablood taasoo October ka dhacay hotel naasaablood waan gartay marka waa sidii xaaladaada maxaa dhibo hadda kula soo gudboonaaday والله هرتا استالك دونا انجلي مقدس international sidoo kale istaalki xalday oo bashir halka sanadweel oo ku jiray kadibna ay la soo xiriireen ururka nafaj iyo wasaaradda warfaafinta istaalka horna ay iga soo bixiyeen oo liigay istaalka imaaraadka waan gartay iyadoo la balan qaaday inaan heli doono caafimaad dibadda ah waan gartay halka waxaan ku jiray muddo adiga 2 bilood oo aan ku joogay balaqaadkii wasaaradda warfaafinta iyo ururka nafaj waa gartay muddo kadib bixitaanada sugeynay way suurtagal waayeen oo meesha aan bixitaanka sugeynay baasaboorada dib aan ugu soo celiyay waxayna nagu dhaheen waad bixi kartiin sidaasna waa asxaabteydii kale eeligeedii salwan iyo iga soo saareen waxaan galay digfeer waa gartay digfeeraan galay digfeer markaa waxay ii sheegeen inaysan waxba ka qaban karin lugtayda ayna sii naafoobayso marba markii kasii dambeyso lugta sidee ayuu dhaawac usoo gaaray xaggee ka dhaawacanta lugta waxay ii dhaawacantay qoobka kala goyska marka seediya igoy joog oo 3 meel ah way ii gaareen dhammaan isbitaaladii aad gashay ma waxay ku sheegeen inaan waxba laga qaban karin gudaha dalka sidaas ay sheegeen inaan waxba laga qaban karin gudaha dalka ururka suxufiyiinta Nusaaj iyo wasaaradda warfaafinta ee aad la kulantay balaqaadkan ku sameeyay xagee ku dambeeyay balantoodii wallahi horta rajadii aniga 4 bil ku soo gaaray wali kama rajo dhigin oo aniga hadda maanta ayga ima dhihin halkaan aan ku soo keenay inta ka badan dadaalkii halkaan uu wax uu ma qaban karnay ma aysan dhihin kulli waa dad sidaan filay wali dadaal ku jiro laakiin rajadii way soo dhaxday waan gartay marka maxaad hadda doonaysaa ma iyaga wali rajadoodii dhowri mise waalidkaagi way awoodaan inay ku wadaan والله horta waalidkeeda awooda inay wadaan aniga halkaas soo ma gaarin arintan waxay gaartay dawlad waan gartay markay gaartana kulli balaqaadkii shal aniga la balan qaaday ayaan ilaa inta ku soo gaaray oo ku taagnaa inta dhawaatada heesta waxay tahay inay lugta iga sii naafoodo inay iga garabato oo maxaa dhahay aan dhulkooda gaarsiin karin ilaa faraha kale aan dhulka dhigi karo maahan markii kugu wardambeysay Allah hadasho waa goorme dawladda iyo Nusaaj wallahi inta soo xiriirin dad baan oo dhaxay laakiin mar walba waxay leeyihiin waan ku jirnaa gabadha hawsheeda oo aan wax ka soo saarlaan ma ku muuqata marka dadaalada ay wadaan iyo rajo ah inaad waqti dhow suurtagal ay tahay inaad baxdo horta waxay rajo gali kartaa adiga marka waqti lagu qabto oo waqtigaas ay wax ku suurtagelayaan sidaas ay noqon doontaa waan gartay laakiin hawshan ku jira waa markaad ka soo tagto walaaca qabtida inay lugtaada ay si naafoobayso hadda xanuun ma kugu dhagan yahay oo aad la taahayso ma jira habeenkii oo kale xiliyada markay noqoto qabowga xanuun waxaan dareemaa gaari ilaa sinta waan gartay marka xanuunkaas ilaa sinta gaaray oo laakiin maalintii aan caadi ay habeenkii xiliyada qabowga la gaaro aan dareemo maxaad ka dalbanaysaa madaxda Nusaaj iyo dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda warfaafinta waxaan jeclaan lahaa in aan ka codsanahay iyagana in si degdeg ah wax lagu qabto marka aan dhamaan ka codsanahay madaxda qaranka iyo Nusaaj iyo dhamaan intii maxaa la hay'adaha